السلام عليكم. kusoo dhawaada kanaalka Mano Production. waa koorsadii ahayd barashada PowerPoint iyo af Soomaali ku bixisay ayaa cashirkeedii labaad ayaan idin soo gudbinayaa. maanta cashirkan waxaan ku qaadanaynaa slideska maxaa lahaa iyo qaababka loo isticmaalo slideska. waan soo kacsanayaa PowerPoint-ga hadda searching ayaan ku qorayaa PowerPoint. slideska iyo qaybaha kala duwan iyo sida loo isticmaalo ayaad ku baranaysaa koorsada ama cashirkan. PowerPoint ayaan soo furanayaa hadda. saa u jeed slide ama presentation word marka la joogo Microsoft PowerPoint-ga waxaan isticmaalaysaa wordkaas ujeeda hadda cadaanta click aad meesha ku qoran tahay ayaa waxa dhan lagu edit gareeyaa, lagu design gareeyaa. hadda waxaan ku qorayaa hordhac ayaan ku qoranaynaa. waa aad ay u fududahay markasta haddii soo gasho oo computer kasta nooc kasta ahaado saan ku soo kacaya kor u jiide. haddana kana waan ku qoranaynaa hordhac gaaban. marka farta ayaan bold ka dhiganayaa, colorkana madow tiq ayaan ka dhiganayaa. markaas kor u jiidaa, korna waxa u jiiday falaarta afarta dhinac markay ku soo baxdo kor u jiid habeenine ama saartid sida design garinaysa ayay ku xiran tahay. hadda u jeeda hal slide ayaan sameeyay, waxaan rabaa slide kale inta ku soo darsado. anaga joogno meesha slides ay qoran tahay ayaa ka arkaysaa new slide meel ay qoran tahay. click ayaa siinaysaa slide cusub ayaa ku soo baxay. kii koowaad mid labaad ayaa ku soo baxay oo cusub. midka cusubna design nooc sideed ayaa u habeyn kartaa waxa aad diyaarinaysa ku xiran tahay. markaad kan xoogo hordhac ayaan ku qoranayaa. hadda waa ujeedin midka labaad waa soo bixsaday. wixii cusubna xagga ayaad iga soo xiriiri kartaa Mano Production canal gmail.com. new slide ayaan hadda soo furanayaa. saa ujeeda mid cusub. mid cusub ayaan soo furtay oo asina waxaan rabaa inaan wax ku qoro asigana cashirkii labaad cashirkii saddexaad. cashirkii saddexaad kii labaad waa hadda kan laagis abulundun kan waa waxa iska qorayaa anigu wax ma diyaarsano laakiin course cashir kale waxaan soo socdaa si toos wax u diyaarinayno. hadda ujeeda marka slide kale aan ku darsanaynaa waa ujeeda slide si badan ayaan soo furnay. design-ka farta haddii word aad ka siisid kan waa fudeed wax uu ka duwan yahay malaan safe marka access toolbar-ka save aad dhihi kartaa ama waxaad soo furi kartaa office button-ka save ayaad dhihi kartaa. kabacdi marka
saa ujeedo dhacadii u qor meesha ku save gareynaysid iska hubi. Okay, hadda waan save gareynay documentii ku save gareynay. So marka waxaan rabaa inaan mid cusub soo furto. Waxaan dhahayaa open ayaan dhahayaa ama new. Open ma rabe open mid oo jiri oo ina soo furto waa like hadda new ayaan dhahayaa. So mid cusub aan soo furto create ayaan dhahayaa. markaas ka bacdina create mid cusub ayay soo baxay. marka hadda slide-ka ma rabo sidii aan jirnay qaab kale ayaan dhahayaa. meesha filters ay taabanaysa slide courses. So mid nooca design kartida ka dooran kartaa adiga ku xiran tahay. hadda kan ayaan dooranay intaan contactiga selection mid waa to contact nooca dooran kartaa ama kuwan comparison waa design loo tagay macnaha qaab fudud dadka presenterka qofka inuu ku fududeysto howlihiisa markuu degdeg camal wado. hadkan ayaan boroweynayna saa ujeedo. Okay, kana marka aan ku qoraynaa course barashada PowerPoint. Okay, halkan marka saa ujeedo kor waxaa loo talagalay hoos sawir iyo video inta lagu kor cashirka ama wax muxuu yahay oo tilmaamaya sawirka ayaa loogu talagalay contact. Okay, halkan marka sawir ayaan soo gishanayaa. hadda sawirka ayaan taabanayaa. Okay, marka sawirka waa ujeeda waan soo gishanayaa. So marka sawirka waan soo doortay open ayaan dhahayaa. click ayaan dhahayaa. open ayaan dhahayaa. insert ayaan dhahayaa markaasna. Okay, hadana mid kalena taas camal laasin waa soo gelinay sawirka taabanay. sawir meesha yaala ka soo qaad soo geli. waa qaab marka oo design Microsoft uu soo talagashay qaab aad simple ahaan in lagu qaato dadku u fududaato markay sameynayaan. So design-ka waa qaadan kartaa cusub nooc kale waa jiraan. waa okay, mid cusub soo furanaa. saa ujeedo kan camal asigana waa sidii halkan sawir ayaad soo gashanay. meeshaan waxay qoran sawir soo gashanaa. Okay, geeska iyo sawir soo gashtay. okay, taas ay noqotay manual production. saa ujeedo waxaad qori kartaa. So adiga markaad wax diyaarinaysid horta subscribe. Okay, markaad wax diyaarinaysid waxa fiican inaad soo diyaarsatid wixii qor lahayd wixii kalaba. Okay, hadda aniga waa practical waa qaab fudud safe ayaan dhahanayaa oo meesha ku save gareysanayo waa ujeedaa local diskiga. Okay, safe ayaan dhahayaa marka. So markaan safe dhahdo kan maro marka saa ujeedo labada xabsan ay noqdeen. new slide loo soo furi kartaa. hadda dii doonto mid cusub waxa cusub oo ku dari kartaa. maro hadda nooc kale ayaan dooranayaa. mid ever ayaan doortay. saa ujeedo hadda mid ever marka sawir soo yegsan karaa. insert ayaad tagaysaa meesha ku qoran tahay picture oo illustration-ka ayaad ka dooranaysaa. sawir cusub ayaad soo gashanaysaa. insert ayaad dhigaysaa. waa qaabka loo sawir loo soo gashtay iyadana oo adiyadan waxaysanin. Okay, sawirka markaa soo gashtay ujeedo waxaa rabaa in haddana shape soo gashto. insertiga design macaan ayaad gelaysaa. shape ayaan soo gashanaya haddana oo calanka Soomaaliya xidigi badan leexayaan sawir cusub. Okay, soo ujeedo. Okay, so waxaan aan sameynayo macnaha word ayaa lagu bartaa. Okay, video word oo dhameystiran ayaa description-ka video aan hoostiisa ku dhigayaa. halkaas si toos ayuu ku geenayaa file-ka oo dhan oo ku saabsan yahay word oo waxaan design-na waxaan dhan loo sameeyo oo si fudud oo tartiib loogu barayo. hadda aniga waa slides ayay muhiimada tahay. So halkaas ayaad tusin kartaa. marka saa ujeedo hadda textina malahan text section marka insert ayaad tagaysaa. saa ujeedo text box textiga ayaad dooranaysaa. texti markaas waa qabanaysaa click ayaa haynaysaa waa jiidaysaa. Okay, wixirta ku qoraysaa marka texti hadiyada leensa sabay. Okay, so
bartona sidii office kusoo bartay word, so Microsoft Office Word kusoo bartay waa weyneenahay oo uma baahna sharaxaad iyo waxaas inta iska saxo. Okay, marka hadda waa ujeedaan design saan ku sameynay slides ka xigay cashirkan ku saabsan waxaan filayaa inaad ka faa'iidaystay cashirkan. haddii aad ku cusub tahay kanaalkan fadlan subscribe leh, asxaabtaadna u share garee. haddii rabo mid cusub aad soo furi kartaa ama midkii hore waa soo kacsan kartaa. hadda tusaale ahaan kii hore ayaan soo furinaa. okay, so ujeeda hadda kii hore waa inuu sabgelisay asagana waxba ka bedeli kartaa, waxba ku soo kordhin kartaa. waxaan filayaa inaad koorsadan ka faa'iidaysatay. asxaabtaadna u share garee si ay ugu faa'iidaystaan. halkan ayaan ku ekeenaynaa ama ku egyahay cashirkeeni labaad. so waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysan doontid cashirada xiga. subscribe leh haddii aad nagu cusub tahay.